salaamullaahi calaykum meel kastoo aad adduunka dacaladiisa ka joogtaan wararkeenni ciyaaraha waxaa ka mid ah kooxaha liverpool iyo arsenaal oo guula gaadhay kooxda liverpool ayaana anfield ku garaacday kooxda leicester city sidoo kale kooxda arsenaal ayaa iyaduna waxay ka badisay kooxda wolves iyadoo ku garaacday 1-0 laakiin waxay sii wadataa akhlaaq xumadeeda xagga red card qaadashada kooxda arsenaal tolow goorme ayay iska dayn doontaa red card qaadashada waana kooxda ugu badan hadeer red card qaadatay sanadkan seasonkan socda ama Premier League-ba kooxda Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield ku garaacday kooxda Leicester City iyadoo ka soo argusatay guuldaradii kulankii hore ee ugu soo xambaarisay Kim Power laba gool oo labadii qaybood uu kala dhaliyay Diogo Jota ayaa Liverpool u sahlay inay hesho 3 dhibcood kaasoo soo yareynaya farqiga ay u dhaxeeyay Man City iyadoo ku soo koobtay 9 dhibcood oo kaliya kooxda Liverpool qaybtii hore ayay heshay goolka uu u saxiixay Diogo Jota daqiiqadii 34aad hase ahaatee Leicester City ayaa goolal badan iska khasaarisay iyadoo inta badan maamuleysay ciyaarta qaybtii hore ee hadda waa haafkii hore iyadoo in ka badan 23 baas kubadood oo xiriir ah isku dhibtay kooxda Leicester City ayaa dadaal aad u fara badan oo ay sameeyeen isku dayo fara badan iyo kubada ay isku dhibteen haafkii hore laakiin daafaca Liverpool ayaa wuxuu ahaa shub ay Liverpool samaysatay daafacyadooda aan ciyaar lagu dhaafi karin iyagoo ku jiray dadaal iyo feeyignaan dheeraada wuxuuna ahaa derbi aan si ciyaar lagu dhaafi karin iyagoo weeraryahanada Leicester City waa dhaafi kari waayeen derbigaas ay qoteen Liverpool kaasoo aan ciyaar lagu dhaafi karaynin Mohamed Salah waa hogaamiyihii Masar ayaa isagana haafkii dambe lagu soo tuuray Mohamed Salah oo madaxu kacsan yahay oo ku xanaaqsan saaxiibkiisi Mane kaasoo ka soo qaaday koobkii qaaradda Afrika ninkaas maxaa saaxiibkaas sida ugu gashay Maneyo ninkaas saaxiibka maxaa sida ugu gashay ayaa bedel lagu keenay qaybtii labaad ee ciyaarta isagoo kubad loo qaatay gool oo cadaan ahayd ka khasaariyay Liverpool goolka ayuu ula tagay ninkaasi dadaalkiisa waxa la dhalatay Liverpool baa isir goolka dhalay Mohamed Salah waa ku tuurtay goolkaas nasiibka ayaana ka saaciday ninkaas maadaama uu soo galay safar iyo maxaa la dhahaa koobkii qaaradana laga soo qaaday isagoo ma garanaysaa ka fakarayay guuldaradii xanuunka badnayd ee saaxiibkii Mane ku soo baday marka odayga nasiibka in Liverpool ninkaas inay nasisaan oo aad waqti ku siisaan kaasoo uu maxaa la dhahaa iskaga maydho fakarkii faraha badnaa iyo soo jeedkii iyo maxaa la dhahaa waayo waa nin koob soo ciyaaray oo koobkii laga soo qaatay guuldaraystay markuu guuldaraysto madaxa ayaa loo dejiyaa la dhahaa naso Liverpool ayaa qaybtii dambe ciyaarta waxay soo bandhigtay kubad aad u heer sareysa mar kale Mohamed Salah ayaa laad awood badan wuxuu ku tuurtay goolka Leicester City laakiin birta ayaa waxay noqotay gool hayihii ka noqotay oo goolka birta ayuu ka jaray goolkaasi mana uu u dhalan goolkaasi sidoo kale Luis Diaz ayaa isaguna maxaa la dhahaa kubado badan iyo fursado badan uu helay waxa iska joojiyay daafacyada Leicester City kuwaas iyo goolkiibahoodaba marka ninkaas caadi maaha isaga laftigiisa xalay kubadiisa waa daawaday kubad aad u heer sareysu soo bandhigay marka waxaan malaynayaa maalin dhow markuu Liverpool la qabsado Diogo Jota iyo Mohamed Salah iyo Mane iyo markay isla helaan nimankaas Liverpool waxba lagama qaban karayo wallaana waxba looga qaban karayn marka Liverpool qaybtii dambe ciyaarta waxay soo bandhigtay kubad aad u heer sareysa oo maxaa la dhahaa ay lagu raaxaystay sidoo kale goolkiibaha Alisson ayaa isagu iska raaxaysanay wixii cariya igu soo tuuray kubadda iska jiifjiifso ninkaasi raax u fadhiyayo kubado badan uma iimaanayn ciyaarta qaybtii dambe ka raax ku fadhiyay 12 daqiiqo ugu horeeyay ciyaarta kooxda Leicester City ayaa waxay sameeynaysay dadaal iyo maxaa la dhahaa weerar iyo kubad hayn fara badan markaas odaygu markaa feegaan dheeraad ayuu ku jiray laakiin ciyaarta qaybtii dambe iyo magaranaysaa wixii 30kii ka soo bilaabmay ilaa iyo 25kii ilaa iyo dhamaadka ciyaarta ninkaas raaxa weyn buu iskaga jiray hadaba dhamaadka ciyaarta ayaa Liverpool waxa goolka u dhaliyay guushana u sii dheereysiyay inuu xaqiijiyay 3 dhibcood iyagoo Jota kaasoo gool ka dhaliyay dhamaadka ciyaarta kooxda Liverpool ayaa waxay soo gaabisay farqiga u dhaxeeya iyaga iyo Man City iyagoo dhibcaha ku soo koobay 9 dhibcood Liverpool waxa u harsan hal ciyaarta hadday badiso
6 dhibcood bay hadda kusoo koobi doontaa nimanka Liverpool waaba tartamayaal dhaba waaba nimanka Man City haddii la qabto waa 2 ciyaarood oo kaliya la qabtaba haddii la qabto nimankaas waa tartamayaan marka dhamaadka ciyaarta ayayna 3 dhibcood xaqiijisteen oo sii dheeraysteen waxayna kusoo koobeen 9 dhibcood oo kaliya ayay kusoo koobeen Premier League hal ciyaarna waa u harsan tahay kooxda Liverpool dhaga kale hadaba Arsenal ayaa soo cadhisatay kaalinteeda 5aad ee horyaalka Premier League waxayna 1-0 kusoo garaacday kooxda Wolves oo marti uga ahaayeen garoonkooda gool uu qaybtii hore u dhaliyay daafaca reer Brazil Gabriel waxaana uu naadigiisa ka caawiyay inay kaalinta 5aad ay soo gasho kala sareynta Premier League ayna u soo dhawaatay kooxda West Ham oo kaalinta 4aad ku jirta iyagoo hal dhibic oo kaliya ka sareysa Arsenal ayaa ciyaarta ku dhameysatay 10 ciyaartoy waxaana kaarka casaanka loo taagay da'yarka heer Brazil Gabriel Martinelli Arsenal hadaba waxay sii wadataa rekoorkeeda red card qaadashada iyagoo markoodii 4aad oo season-kan kaliya ay qaateen red card nimanka Arsenal red card qaadasho badan nimanku red cardka waa iska qaadanaya hoygooduba noqday talow saaxiibka jaamac muxuu la hadli waayay kooxda Arsenal oo oran waayay war meesha nagu ceebaynine red cardka iska kala daayo bahalka macalooshaad u cunaysan waxay maqli jiray carruurta yaryar marka la dhaho bariiska qaydin iyo marka cunan bala dhaho war calooshu ka soo baxay caloosha ha u cunina bahalka marka yar Arsenal waxaan ka baqay red cardku inuu caloosha idin ka soo baxo marka bahalka iska daaya kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa hadaba waxay soo bandhigtay kubad aad u heer sareysa inkastoo ay red card ka qaateen haddana kubadahoodu aad bay u fiicnaayeen waxayna ciyaareen kubad aad u qurux badan kooxda kubadda cagta Arsenal waxay tartanka ugu jirtaa kaalinta 4aad say u soo gali lahayd ugana cadhirsan lahaayeen kooxda Manchester United iyo West Ham iyo oo dagaalka kaalinta 4aad ayaa aad u adkaaday marba marka si dambaysa wararkan ciyaaraha intaas ayaa ku soo gabagabayn doonaa salaamu calaykum meel kasta aad joogtaan like-ta iyo share-ta iyo comment-ga hanaga ilaawina dhiirigelin ayay noo tahay